gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee u cid injineer Faysal Cali Xuseen ayaa waxa uu sheegay in waqtigii lagu jiray ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland labada xisbi ee kulmiye iyo wadana ay ka gudbeen xaydaabkii siyaasadda iyo waliba xeer nidaamyaha doorashooyinka waqtigaasi uu yaalay kuna ololeynayeen hab qabaa'ilaysan laakiin labada xisbi kalaba qabiil bay ku taangalayeen qabiil bay ku ordeen kii waayna waa ka imka fariistay muxuu gacan libaax kii kale waa madaxtooyada fadhiya marka labada qabiil labada marka uu kale aan isku keeneen ayaa loo baahan yahay maadaama nagu duminay ma ogtahay qolada madaxtooyada dadka ay ka soo dejisa dadka gacan libaax ka soo saarta inaguna aan isku sameynaa loo baahan yahay anu marka ilaa 1992 Soomaaliland activist hay mar siyaasadan ku jiray ma ogtahay maanta maalay ka xun tahay ma jirto Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga macaaridka u ciiday ayaa waxa dhinaca kale uu ka hadlay xiisada culaadeed ee ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ee u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo waliba kuwa maamul goboleedka Puntland hada dagaal baan ku jirnaa qolada la dagaalamina dad iyo haween iyo sheekhba waa dagaalku ku jiraan inagu we don't feel ma inta ciidamada joogay moojaan inuu dagaal ku jirno ma ogin wadaadkeena wuxuu leeyahay dagaalka hala joojiyo kii xaga ka soo jeeda wuxuu leeyahay wuu soo cabaynaya suldaankeena wuxuu leeyahay dagaalka hala joojiyo kii xagaas sahaydii uu soo wadaa ya de marka si dagaal aan shacbi wadana sidoo adkaada iyo diblomaasi labadii wala naga horeeya xagii abaabulkii iyo xagii diblomaasiga wala naga horeeya inagii victimska baa laga in wax victims kaleynay عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في حرقيسة